bishii Sebtembar sanadkii 1666 dab weyn ayaa ka kacay meel rootiga lagu dubo oo ku taalay meel lagu magacaabo Pudding Lane oo ah wada caan ah oo ku taala magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. Balse saacado gudahood dabkaasi waxa uu isku bedelay masiibadii weyneed ee loogu magac daray Great Fire of London. nin lagu magacaabi jiray Thomas Brenner oo ahaa nin rootiga sameeya ayaa ka tagay foornada rootiga ee dukaankiisa isagoo u maleynaya in dabka uu damiyay. dabku wuxuu si degdeg ah ugu faafay gudaha magaalada London sababtoo ah guryaha waqtigaasi waxa ay badankooda ay ka samaysnaayeen alwaax oo si cariiri ah iskugu dhawaa. dabeel xoog lahna way jirtay. muddo 4 maalmood ah ayuu dabku gubahayay magaalada, waxa uuna gubay in ka badan 13,000 oo guri iyo boqolaal kiniisadood iyo inta badan dhismayaasha magaalada qadiimiga ahayd ee London. inkasta oo khasaaraha hantiyadeed uu aad u weynaa, haddana dadka dhintay aad bay u yaraayeen marka loo eego baaxadda masiibada. masiibadan weyn ee dabka ah ayaa ku qasabtay London inay dib u dhisto gebi ahaanba dhismayaasha magaalada, waxa ayna dejiyeen sharciyo cusub kuwaas oo amrayay in dhismayaasha lagu dhiso dhagxaan halkii laga isticmaali lahaa alwaax. wadooyinkana waa la balaariyay si ay u noqdaan kuwo nidaamsan. qorshayaal cusub oo ay hormuud u ahaayeen nashqadeyaal sida Christopher Wren ayaa dib u qaabeeyay dhismayaasha magaalada, waxaana ka mid ahaa dhismaha kiniisadda caanka ah ee lagu magacaabo St. Paul's Cath. dabkaasi weyn ma ahayn oo keliya burbur, balse waxa uu u noqday bilow cusub asagoo London ka dhigay magaalo casri ah oo ka baxday qaabkii dhismayaasha qadiimiga ahaa. maanta wadada Pudding Lane waxaa yaal taalo loo dhisay xasuusta dabkaasi, taas oo loo yaqaan The Monument to the Great Fire of London. taaladani waxay xasuusinaysaa dadka in dhacdadan ay ahayd mid bedeshay qaab dhismeedka London, maadaama dib loo qorsheeyay magaalada si looga hortago dab kale oo weyn in uu dhaco. aad ayaa u mahadsantihiin. intaas uu ku ogyahay muuqaalkana maantay. haddii aad halkan la soo gaartay ka mid noqon saaxiibada sida joogtaan ugu xiran una sii sheer garee saaxiib sidaadoo kale u jecel.